maadaama ay naftoodina u turi waayeen nafaha kale ee reer Somaliland iyo magaca Somaliland u turi waayeen xukuumaddu waxay go'aansatay sida wasiirku sheegay in gacan bir ah wax laga qabto inaan naxariis dambe loo gelin mar hadday tashan kari waayeen in loo taliyo culimaan la isugu yeedhayn cuquul kalaan la isugu yeedhayn kharash dambaan lagu gelayn wax aynkaas waxaanu gaarsiinaynaa dadka wanaagga jecel reer Somaliland dhagtu taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero wixii wanaagga iyo dadnimada iyo islaamnimada jecel inay ku taageeraan ayaanu halkan soo taagnay waxay Soomaalidu ku mahmahdaa dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta loo aaba yeeli maayo oo naxariistii hore ma jirto oo kana sharaf leh iyo kana magac leh iyo kana cayn kana ma jirto waxa weeyaan mar haddii ay 5 sanadood muddo ku dhow imaka waxaas rafanayeen waa loo talinayaa marka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland go'aanka xukuumaddu gaadhay haday golayaasha qaranka tahay haday waxgaradka tahay haday culimada diinkii hore galay tahay haday shacabka wanaagga jecel tahay mid guda ku nool iyo mid dibad ku noolba in xukuumadda la isku barbartaaga arrinta oo aan xal kale loo haynin ayaanu idin deeqsiinaynaa halkan ay soo taagnay kagana wakiilnay xukuumadda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.